bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarteena dhagaysanaysay idil ahaantiinba meel walba joogtaan iyo si walba maqalkayga idiin soo gaarayo kusoo dhawaada barnaamijka caafimaadka ee warbaahinta Isnay oo toddobaad walba aad ka dhagaysataan Isnay Radio. barnaamijka caafimaadka waxaan kaga hadalnaa toddobaad walba cudurrada halista ah ee ku dhaca dadka. toddobaadkan barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonaa mid ka mid ah cudurrada halista ah ee ku dhaca ragga iyo dumarka. cudurka jabtada waxa uu ka mid yahay cudurrada halista ah ee ka dhasha bakteeriyada. cudurka jabtada ayaa ah cudur lagu kala qaado bakteeriyada faafta, waxa uuna inta badan ku dhacaa xubnaha taranka ee dumarka iyo ragga. cudurkan ayaa sidoo kale waxa uu ku faafaa galmada ay dadka ku sameeyaan xubnaha afka iyo xubnaha taranka bani'aadamka iyadoo aan dadkaasi isticmaalin wax ka hortag ah. waxaa jirta cudurka jabtada ah. calaamadaha lagu garto cudurkan ayaa waxaa ka mid ah inay ka soo baxaan xubinta taranka dheecaano cagaaran iyo kuwa jaalle ah. waxa uuna dareemayaa qofka markii uu kaadiyo xanuun iyo mararka qaar ay xubinta taranka ka yimaado waxyaalo dhiiga. qofkaasina waxa uu inta badan haya cudurka jabtada uu isku arkaa nyucnyuc ka yimaada xubnaha taranka. cudurkan ayaa haddii aan la iska daaweynin waxa uu u faafaa xubnaha kale ee jirka. cudurkan ayaa haddii aan la daaweyn waxaa imaan kara in qofka uu noqdo madhalays iyo in cudur kale ay ku dhacaan qaybaha hoose ee jirkiisa. daraasad cusub ayaa sheegaysa in dadka qaba cudurka jabtada ee dalka ay kor u dhaaftay in ka badan 63% shantii sano ee la soo dhaafay ayaa cudurka jabtada waxa uu kor u dhaafay dadka uu ku dhaco 63%. cilmi-baarayaasha daraasadan diyaariyay oo u dhashay dalka ayaa sheegay in inta badan dadka qaba cudurka jabtada ay yihiin dhalinyarada ku nool magaalada. sidoo kalena cudurkan waxa uu ku faafaa meelaha ay dadka isugu tagaan iyo sidoo kale inaad isticmaasho dharka laga xirto hoos. ilaa iyo hadda lama oga waxyaabaha sababay inay kordhaan dadka qaba cudurkani ee ku nool dalka. cudurka jabtada ayaa ku dhaca xubnaha taranka bini'aadamka waxaana lagu daaweyn karaa daawooyin loo yaqaan antibiotics. cudurkan ayaa waxa uu inta badan u badan yahay dhalinyarada waxaana jirta cudurro badan oo lagu kala qaado galmada. jabtadan waxa ay ka mid tahay cudurrada lagu kala qaado galmada iyadoo dhakhaatiirtana ay ka digeen in ay yareeyaan galmada khayru sharciga ah si looga fogaado cudurrada lagu kala qaado galmada. barnaamijkana toddobaadkan waxaa marti noogu ah mid ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle. Dr. Sharma Arki waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta ka howlgala Jowhar isbitaalka Intersos. waxauna toddobaadkan marti ku yahay barnaamijka caafimaadka ee warbaahinta Isnay. Dr. kusoo dhawow barnaamijka caafimaadka ee warbaahinta Isnay. ku dhawahay maasha Allah idaacadda Isnay. waan ku faraxsanahay inaan kala qayb galo barnaamijka caafimaadka oo aan martida ku ahay oo studio ay soo dhaweysiin. aadan ugu faraxsanahay. Dr. waa mahadsan tahay. maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno cudurrada halista ah ee ku dhaca dadka Soomaaliyeed. maanta waxaan rabnaa toddobaadkan inaan ka hadalno cudurka loo yaqaano jabtada. waxaad faahfaahin naga siisaa waxa uu yahay cudurka jabtada. waa maasan tahay. jabtada horta sideedaba waxaa waaye waa cudur waana cudurrada loo yaqaano STI. waa cudurrada ku gudbo galmada oo waxaa keena badanaa laba qof markay isku galmoodaan ay isku gudbin karaan badanaa. waana infection waa caabuq oo ku dhaco xubnaha maxaa la dhahaa peniska ama vaginaha xubnaha taranka ku dhaca waa. marka dhowr nooc ay noqon kartaa. calaamadahan waa lagu kala duwan yahay oo female iyo ragga iyo dumarka ku kala duwan yihiin. marka haddii aan soo koobo jabtada ama waxa loo yaqaano gonorrhea waa infection wuxuuna ku dhacaa dadka adultiga u badan yahay oo weliba wuxuu ku dhacaa genital area ama xubnaha taranka u badan yahay inuu ku dhaco. inkastoo hadduu weynaado
uu qaybo kale u sii gudbi karo. waan gartay doctore ma leeyahay calaamo gaar ah ama astaamo gaar ah oo qofkaasi ka soo muuqanaya markii la dhaho cudurka jabtada hayo? way jiraan waxaa jira horta calaamadaha waxaa ka mid ah qofka markuu calaamadaha way kala jiraan secondary iyo primary kala leeyihiin, kuwa soo hormarayo iyo kuwa dib u dhacayo. qofka horta infection hadduu soo galo jirkiisa waxa ugu horeeya oo lagu arkayo waxaa waa temperature-kiisa kacaya, qandhaa lagu arkaya. qandhadaas marka lagu arko kadib waxaa imaanaya marka cudurkan wuxuu leeyahay wax la dhaho incubation period, xilli huris time uu kusoo muuqanayo jiro. cudurradu way ku kala duwan yihiin markuu jirkaaga viruska soo galay ama bacteriada soo gashay ilaa iyo ay ka soo muuqan calaamadaha time ku dhaxeeya waxa loo yaqaan incubation period ama xilli huriska. marka haddii aan soo gudubno calaamadaha oo jabtada ama gonorrhea waxa loo yaqaano, waxa ugu muhiimsan qofkan discharge ka imaanayo, dhacaana ka imaanayo xubnihiisa taranka, haddii uu nin yahay haddii naag ay tahayba. dhacaankaas color uu leeyahay, mostly waa yellow, waa jaalle. wuxuu kaloo leeyahay uruu leeyahay. waxaa kaloo ku imaanaya qofkan itch inuu cuno oo meesha ay cuncun ay keento ku imaanayo. calaamado badanna way jiraan. waxaa kaloo ka mid ah qofka madax xanuun inuu dareemo, appetite iyo wixii asiga dhan inuu noqdo qof oo fresh aan ahayn. laakiin calaamada ugu muhiimsan waxay tahay dhacaankaas qofka ka imaanayo. maxaa keena marka xanuunkaas? xanuunkan waxaa keeno bacteria keento oo Neisseria gonorrhea la dhaho, oo badanana dadka ay kala qaadaan ama ay isku gudbiyaan. marka bacteriadaas ayaa ugu muhiimsan waxa keeno. waxaana la ogaaday inay bacteriadan ay jirto oo ay tahay cudur ay sababi karto sanadkii markuu ahaa 1879 ayaa la ogaaday inay bacteriadaas ay cudurkaas ay jiraan. waan gartay sidaa sheegtay xanuunka jabtada waxa uu ku dhacay jiray sida biniska vagina, ma jiraa meelo kale oo cudurkaas ku dhaco? xubnaha taranka markuu kow ku dhaco oo calaamadaha soo muuqdaan, for example dhacaankii oo qofka imaado kadib waxaa dhici kara waxaan infection waa wax faafayo waaye inuu sii gudbo haddii aan la daaweyn qofkan, inuu sii gudbo oo kaadi mareenkii uu sii maro oo maxaa la dhahay kelyihii uu sii gaaro. marka meelo badan uu saameyn karaa, kelyaha oo kale qofkan uu ka saameyn karaa haddii uu ku daaho. riskiga ugu badan qofkan ku keeni karana waxay noqonaysaa inuu qofkan madhalays u noqdo oo infertility wax la dhahay ay ku dhacdo. marka haddii uu ka tago kaadi mareenka wuxuu galaya kelyaha, waxaana keenaya taas ayadoona la daaweyn cudurkii oo qofku waqti uu iskala noolaado. marka waxaa habboon qofka cudurka calaamado markuu isku arko oo dhacaankaas oo kale markuu isku arko in immediately hore ma laga dhihi karo waxaan gonorrhea waa cudurro kala jiri karo oo qaabkaas oo kale dhacaamadaas leh. marka waxa kala saari karo waa inuu tago isbitaal, inuu tago dhakhaatiir la xiriiro oo baaris lagu sameeyo, kadib la ogaado inay iida tahay, isla markiina uu qaato treatmentiga ama daawada loogu talagalay inuu hore ka qaato. taasaa muhiim ah. cudurkaani ragga kaliya miyaa la dhihi karaa wuu qabaa mise dumarkan way ku jiraan? labadaba way u sameeyeen, ragga iyo dumarkaba wuu ku dhacaa. maxaa la dhahay wayna isku gudbi karaan labadaba. waxaana keenayo inay isku gudbiyaan sexual intercourse hadduu badan yahay qofkan, hadduu uu galmo badan uu sameeyo hal qof kaliya uuna ku koobnayn oo dad badan uu leeyahay oo galmo la sameeyo. calaamadaha ay ku kala duwan yihiin waxaa kow ka discharge dhacaanka imaanayo oo isku mid ma ahan, midka dumarka imaanayo iyo midka ragga isku mid ma ahan. calaamado kalena way jiraan oo ay ku kala duwan yihiin dumarka iyo ragga markay labadoodaba ay develop garayaan ama uu ku dhaco cudurkan gonorrhea ama jabtada wax loo yaqaano. hooyada uurka leh haddii ay qabto cudurka jabtada maxaa dhibaato ka soo gaari kara? hooyada uurka leh intay uurka leedahay horta cunugeeda wuu badbaadayaa, laakiin dhibka ugu weyn waxay tahay cunugeeda ay ugu gudbi karto cudurkan markii ay dhalayso. macnaha wuxuu soo marayaa area genital area uu soo marayaa cunuga sooma. marka waxaa dhici karto in cunuga sidii uu ku develop garay
dhibka cunug ku imaan karna waxaa ka mid a oo cunugaas meeshaas infectedka soo maray in uu indhihii beelo oo blindness uu noqdo iyo waxyaabo kale oo cuduro xanuuno kale inay ku imaadaan. So marka waxaa habboon hooyada naftirkeeda hataa inay caafimaadka la socoto, ay mar walba baaritaan lagu sameeyo. intaasaa muhiimadda ah. ilmahana way develop garayn karaan, iyadana khatar ay u geli kartaa. So marka waxaa ku habboon hooyada haddii ayba isku aragta calaamadahaas inay goob caafimaad tagto, ay dhakhaatiirta ay ra'yi weydiiso, ay la tacaasho. sidaas sheegtay cudurka sexual intercourse-ga lagu kala qaado galmada ma jiraan iyadoo sexual intercourse dhicin in cudurkaas qofka galmo iyadoon dhicin? si fiican way jiri kartaa. waxaa jira waxa la dhahayo wax aan galmo ahayn laakiin galmada ka ag dhawaa jiro oo la dhaho oral sex, oo for example qofka dumarka ah nin oo ama nin rag oo qabo cudurkii gonorrheaha in ay qaab oral ay isku isticmaalaan oo maxaa la dhahay xubintiis taranka ay afkeeda geliso way jirtaa. taasoo kale maxaa yeelay waa infected, shaygan infected waaye, marka way develop garayn kartaa markaasoo kale. waxaa kaloo jira anal sex wax la dhahayo, waa lagu kala qaadi karaa asigana. anal sex asiga wuxuu soo galayaa sexual intercourse soo galaya, laakiin badanaa waxaa sameeyo dadka oo gayska la dhaho ama oo dad laba qof oo isku jinsi ah oo galmo wada sameeyey. haddii aan kusoo koobo, ayagana way ka dhex dilaaci kartaa sidoo kale. marka intaas qaabkaasoo kalena waa ku imaan kartaa. marka cudurkan ma leeyahay wax daawo ah? cudurkan daawo waa leeyahay, maadaama ay bacteria keenayso. daawadiisa waxay noqonaysaa antibiotic in la siiyo qofka, antibiotic in la siiyo. antibiotigaas marka wuxuu noqon karaa, waxaa ugu muhiimsan in azithromycin la siiyo oo kaniini in la siiyo. daawooyin kalena way jiraan, laakiin kaasaa ugu caansan in la siiyo qofka markii uu gonorrheada lagu arko. waxaa kaloo jiro waxyaabo kale oo natural remedies la dhaho, qofkan sida in maxaa la dhahay biyo badan uu qaato kale. waxyaabo badanaa jiro uu sameyn karo, laakiin muhiimaddu waxay tahay haddii uu meesha infection uu imaado, bacteriana ay keento, in la sameeyo qofkan in antibiotic la siiyo. azithromycinkaasana ugu muhiimsan haddii gonorrhea ay jirto. combinations kale, daawooyin kale oo la isticmaalana way jiraan. waxaa jiro cudurro la baaro, jabtada ma ka mid yahay cudurrada la baaro? yes, waa la baaraa. waxaa loo baaraa, waxay tahay waa the easiest, waa mid ugu fudud waay. dhowr nooca loo baari karaa. dhacaanka qofka imaana in culture loo sameeyo kale oo bacteriadii macnaha waxaa la sameynayaa qofkan dhacaana ka imaada, dhacaankiisa la qaadayaa. waxaa la sameynaya wax culture in la dhahayo lagu sameynayo oo laabka lagu sameynayo, waa lagu ogaan karaa midaas. dhowr nooca loo baari karaa. diagnose uu leeyahay cudurkan, marka waxaa habboon qofka haddii uu isku arko si loo kala saaro oo loo kala ogaado cudurkan inuu gonorrhea yahay ama mid kale oo asiga u dhow oo calaamadaha xagga calaamadaha isaga dhow yihiin uu yahay, waa inuu sameeyaa inuu isbitaal taga si baaris loogu sameeyo oo loona ogaado cudurkan inuu yahay in kale. qofka haddii uu daawada si dhakhtarka soo qoray uusan qaadanin, maxaa caqabadaha oo la kulmi karaa qofkaas? qofka hadduu daawo qaadan waxaa ka imaan kara wax complications la dhahayo. complicationska waxaa waa cudurkan wuxuu kugu reebi karo, waa raadka uu kugu reebi karo. raadkaas wuxuu noqonayaa laba nooc. haddii aad iska daaweyn oo long time kugu noqdo, waqti dheer kugu qaato, raad uu kugu reebi karaa. aduu iska daaweysay oo daawada qaadatayna raada uu kugu reebi karaa. marka haddii aad iska daaweynin oo kugu fogaado, waxaa kugu imaan kara kow waxa la dhahay infertility. infertility waxaa waaye ma dhalays inaad noqotid. ma dhalaysnimada marka waxay noqonaysaa male iyo female labadaba way saameyn kartaa. waxayna ku imaanaysaa ma dhalaysnimada maleska oo kale aan ka soo qaado, waxay leeyihiin spermay leeyihiin. spermahaas oo lagu talagalay inay la falgalaan ugxanta dumarka si meeshaas uu production cusub ugu soo baxo ama wax cusub ilmo ay ugu dhashaan. so marka spermkaas badanaa waa life, waa wax nool. so marka infectionka hadduu gaaro waxyeeleynayo, wuxuu ka dhigayaa kuwo dhintou ka dhigaya.
spermku waa soo saaraysa adiga waa soo produce garanaysa laakiin wax falgal ah ma sameynayo oo weak waaye. So dumarkana sidoo kale ayagana sidoo kale waa iskala mid dhibaatooyinkaas ku keeni karaa. waxaa kaloo keeni karaa blindness ilmaha yaryar oo hooyada haddii uur lahayd cudurka ay qabtay uu ku dhaco ilmihii markay meesha marinka soo marayaan in indho la-aan ay ku dhacdo blindness oo cudurka hore usii qaado kadibna indho la-aantaas uu ka dhaxlo ayagana way dhici kartaa. sidoo kale cudurka jabtada ma sababi karaa qofka in uu dhinto? horta dhimashada marka la dhaho xag alle ka imaataa laakiin wuu sababi karaa haddii kugu fogaado adoo laga daaweeyay oo iska fiicnaatay recurrent xataa kugu sameyn karaa mar labaad inaad kusoo laabatay. marka xalka ugu muhiimsan waxay tahay adiga intoona khatar ku gelinin haddii aad qabto cudurkan inaad daawadiisa complete u qaadatid si dhammaystiran mar walbana goob caafimaad aad la xiriirtid ilaa daawada ka dhamaysanaysid oo dhakhtarka tala aad weydiisid. haddii aad ka raysato oo cudurkan aad ka gudubto oo recovery aad sameyso ayadana waxaa kula habboon in aad mar walba sameyso protection naftaada inaad waxyaabaha qaar aad ka ilaaliso sida multiple partners inaad samaystid dad badan oo xiriir galma niyada ka dhaxeeya inaad samaysatid maxaa yeelay waxaa dhici kara inaad ka develop garaysid cudurka mar labaad ama cudurro kale oo kasii daran inaad ka qaadid keliya maaha jabto waxa oo intercourse lagu kala qaado ama galmada lagu kala qaado cudurro kala jiro oo ayagana ka daran ayada oo kugu imaan karo. marka cudurkani intaan daawada qaadanin ma leeyahay wax ka hortag? cudurkan ka hortag buu leeyahay. ka hortagiis waxay tahay in intercourse-ga oo غير sharciga in la iska dhaafo galmada غير sharciga oo galmada qofka haddii aad qof qabtid oo guur qabtid oo xalaal ay ku tahay gooni laakiin wax ka baxsan inaad samaysid weliba dadka qaarkood hal qof kuma eko oo dad badan ay xiriir leeyihiin xagga galmada ah. so haddii uu qofkan uu jooji karin xataa wuxuu sameyn karaa waxyaabo oo protection ahaan uu isticmaala sida condom oo kale inuu isticmaalo. annaga hadda diinteena ma nafaraysa in wax غير sharci aan sameyno laakiin ra'yiga gaalada qaabkay u dhaqmaan annagoona ku dhaqmaynin laakiin inaa ogaano waa muhiim. protectionka ay sameeyaan waxaa ka mid ah condoms inay isticmaalaan laakiin aad waxaan ugula talin lahaa dadka inay aad isku xadidaan qofka inuu isxadido oo maxaa la dhahay multiple partners ko iska dhaafo dadka badan oo xiriirka galmada kala dhaxeeyo waxyaabo badan. waxaa kaloo keeni karo dresska oo kale dharka oo kale dharka laba nooc oo kale yahay underwear waxa la dhahay jirda dharka hoos laga xirto qofkan oo gonorrhea qabo ama jabtada qabo haddii uu dhacaan ka socdo nigisuu leeyahay xiratay oo kale oo dhacaan kale easily waxaa laga yaabaa inaad develop garaysid ama gabadhan shay leedahay xiratay oo underwear dharka hoos laga xirta ah inkastoo badana ay macquul lahayn taas laakiin dadka qaar waxaa dhici karta inay falkaasan ay ku dhaqmaan ay kula kacaan nafsadooda. so marka waxaa kaloo jiro qofka gonorrhea qabo inuu gacmihiisa la gelin wixii baski iyo waxyaabihii uu hadhow dad kale uu kusii taaban ayadana contamination ka imaan karo taasna way ku imaan kartaa. cudurkan marka yaa khatar ugu jiro? cudurkan horta waxaa khatar ugu jiro dadka oo teenagerska ama dhalinyarada oo da-da yara khatar ugu jiraan. somehow dadka waaweyn way develop garay karaan. dadka dhalinyarada markaa idin dhahaya waxay tahay qofka markuu 20 up to 25 markuu maray somehow waxa waaye markii uu suuqan gaaray xaaladii wuxuu ku jira uga adkeed nolosha marka la maraayo caqligiisa si fiican muu kala go'in marka waxaa dhici karta meelo badan inuu ku dhaco asigoo dareenkiisa xukumayo. waxaa kaloo jirto waxaa ku badan dadka multiple sexiga sameeya waa ku sheegay khatar ugu jiro ayagana oo maxaa la dhahay galmada badan sameeyo xiriirada badan leh. dadka olderka oo dadka waaweyn somehow ayagana way soo geli karaan oo dhankooda way dhici kartaa inay develop karaan laakiin reer waa ma badna.
maxaa yeelay qofka hadduu older noqdo in sexual dad badan inuu xiriir xagga galmada la yeesho way adkaanaysaa. marka mostly waxa ugu weyn oo cudurkan uu saameynta ku reebto waa dadka adolescentiga ama teenagerska la dhaho oo 20 up to 25 ilaa 25 intuu dhaxayso daadooda ay marayso. ma jiraan cudurkan goobo uu ku badan yahay? way jiraan goobo uu ku badan yahay. waxaa kamid ah horta dunida marka la dhaho wuxuu ugu badan yahay Africa, dadka black oo ku badan yahay madowga ah maxaa yeelay protectionkooda aad u liito. haddii aan kasoo gudubno marka goobaha ay imaano waxay noqonaysaa sida meelaha dadka dhalinyarada isugu imaadaan night clubs iyo waxyaabahaas. anaga hadda wadankeena ma lahan, waa maasha Allah, laakiin wadamada qaarkood Kenya iyo meelahaas oo kale dhalinyarada Soomaalida joogto, anaga hadda waxaan ku hadlayno waa afka Soomaalida way dhici kartaa inay meelahaas u bataan. anaga naftirkeena hataa iyadoo night clubs iyo waxyaabahaas aan la fiirin waxaa dhici karo maxaa la dhahay in ay caadi isku raadsadaan dadkii, maxaa la dhahay meelaha crowdka isugu imaadaan. soo marka mar walba waxaa fiican in laga digtoonaado cudurka inuu kusoo gudbo. waxaana taas ku sameyn kartaa inaa xadidid cadad dadka aad la yeelanaysid intercoursiga. 4 qof waa ku banaan tahay oo Ilaahay ku banaanay, laakiin sifa sharci ah adoo u maraysid. laakiin waxaa la diidayaa qeyr sharciga dhibka wuxuu ka imaan karaa taas waay. ilaa qofkan maxaa la dhahay ayadoo xataa sharciyan aad kula joogtiin oo imaan kara cudurkan. marka waxaa muhiim ah haddii lacala qof xaaskaaga ay develop garayso ama adiga aad develop garaysid in si walba uu kugu imaado, waxaa muhiim ah in labadiina aad daawada qaadatiin. maxaa yeelay hal qof kaliya hadduu qaato qofkii kale uu ku haraya viruskii. taasaa muhiimadda bacteriadan dhe. okay, waan gashtay. maxaad kula talin lahayd marka dadka qaba cudurkaasi? waxaan kula talin lahaa inay sameeyaan in laga fogaado xiriiro badan oo galma in la sameeyo, galmada qeyr sharciga in laga fogaado, in underwear-ka aan la isla qaadan, dharka qaarkood oo hoos laga xirto dadka haddii ay lacala ay sameeyaan inay isla qaadan ay ka digtoonaadaan, in qofkan hadduu calaamadaas ku arko si degdeg ah goob caafimaad u tago uu isbaaro dhaqaatiir uu la tashto. teeda kale daawada haddii loo soo qoran daawada uu dhamaystirto oo qofkan daawadiisii uu complete u qaato. maxaa yeelay daawada hadduu qaado waayo bacteriadu waxay sameynaysaa resistant waxa la dhahay, way iska caabinaysaa daawadii. haddii daawadaas dib kale marka lagu sii xataa waxba kaama tarayso. marka waxaa fiican inaad dhamaysatid daawadaada. guud ahaan dhageystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabeynayaa barnaamijka caafimaadka ee warbaahinta Isnaa oo toddobaadkii mar aad ka dhageysataan Isnaa Radio. toddobaadkan barnaamijka waxaa idinla socodsiinaysay anigoo Xaliimo Cali Ibraahim. barnaamijka waxaa farsameynaya injineer Zaki. tan intaan ku kulmi doono barnaamijkan kiisa xiga waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.